warqadda timidday ee xildhibaan maxamed abi ilmaha xildhibaan kasta oo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsan oo saddexda shirkadooda marka laga sababta laayka waanu silan lahay hadday ka iman lahayd xeel dheere iyo hadday ka timaado xildhibaan khayreeyada sida ilaa ay difaacayo sharci umada way soo tahay ma ana soo dagaalamaya faqashaha ayaan ugu warsaban lahay waxaan ahayn oo ku kalsoonahay aqbal maayo waxa sharciyada waafaqsanay ma aqbalayo waxa weeye arintayda adigu waa maamuska xayuubin maraha بدي تشوتني under no circumstances بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تاريخ تاريخي تبكي بشي تضباط لما يكون في اللواتنك حتى إذا جراها وكذا أي صحافة دقيقة يعني وحنو شجعين شو بدون كيد وشرع جبال مري بعد شفتي ورقة تاريخ سنة أفريقيا تبكي بشي تضباط لما يكون في اللواتنك oo haydaraad hore oo ka soo baxday xafiiska xiriiriyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ku saxeexan yahay Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan warqadaasi oo shirkadoonkayga daraad hore u timiday waxa ahayd ujeedadeedu waxay tahay soo jeedin maamuska xayuubin xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac arrintaasi gudoomiyaha golaha wakiiladu isagoo meelaha la garanaya kasoo shidaal qaatay ayuu arrintaa iga qariyey isagoo ii tirinaya inaan hayb la ahay xildhibaan maxamed abiib yuusuf taalada ilaahay baa ii dooray waana ku faraxsanahay وأردت ورقدي قرصنا وجاء قال كلي ويجد بيجدي لشوكتنا يقرأه وكذا أردت أسوي شرع جبال مرسل ما مسك حيوبتها يجدي لشوكتني حق بلها يجدي لشوكتني وحوالي هديح اللي بالكل ولها وكذا فالجرسية اللي قبته وصو فرع كل شيء موقف تبي عم بروح قعدت لقوا بحرل هديو البلو فرع هيدا شغاكم لها هديو البلو حرل هيدا فصح بالي دي يا حرقة لا أقول هذا الدكار واحد عين حلو بالدكار والحكومة اللي صاير حرتي لو حرتي بدي دي تشتريها وعلى يديستي إن أي حرقة وأقول هذا أقول عشان حرق بيديستي ولا كديدين لكن تري وما موسك حيوي وقد ما كان صوت على الدغات هوري وحب الدنيا حق له شي بدو كيد ولا اسكو دغاتو ورقه حفيسه كيرو كدب لا ودا هادلو ليغال فايسر اسكاري يردو طلابada ku haboon aan u qaadno laakiin talaabo dhinaca ay u qaaday haddii dhinaca qaadana shugudoonkii dhinaca u qaatayna ana tallaabadayda go'aansan dhinaca loo qaado gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa leeyahay sharciga ku soo noqo haddaad ku soo noqon weydo sharciga waxaan hadhigayaa 27 dagaal ka saxaaya oo ku jira anigu si degdeg ah golaha u fariisinaya si loogu soo dabaaqo sharciyada golaha wakiilada haddii aad soo celin weydo warqadda aad u gudbiso guddida joogtada ay golaha wakiilada waxaan ku wada shaqeynaa waa sharci ayaga lagu soo ogeeyay waxa ka mid ah in Jabuuti kala kulmay safaaradda Soomaaliya iyagoo ku qoslay sawtiyo ka mid ah dalkani ay Brussels kula kulmayeen madaxweyne Farmaajo iyo golaha wakiiladu iyo golaha guurtida ee baarlamaanka la isku raacay ayaa saxiyeen in ay xukuumadda la doortay ay wada hadal gali karto la kulmi karto quraat leeyahay xubno golaha wasiirada ku jira kula kulmeen dowladda koonfureed ama dowladda Soomaaliya Brussels baa laga kulmay waxayna adigu ugu garan maayo ayna hadii waxa ugu eedeeyaan anigu garan maayo haddii qaar laga leeyahay
wixii ummadda ay ku heshiisay ay u adeegsanayaan siyaasadooda oo ay doonayaan inay dad lagu cabujubleeyaan qaarna ay ku dallaciyaan sharcigu inoo siiyaan waayo ood gacanta ku qaadataan ood idinku ku horeysaan waxaad ka heshaan baad leedihiin saad sharciga ka tallaabsataan ood ku horeysaan anana waanu ka tallaabsanaynaa anigoo marka hore sharcigii lagu heshiiyey iyo wixiisi ku dabaqaya waxa leeyahay waxa lagu soo wayday oo ka wada hadli doonaa haddii gudoomiyaha golaha aniga iga odhana hayb la ahayna dee waa la ahay hadda dadka ay ka adaan dadkayga la joogaa sharci daradeeda adin lagu qaadi maayo ogolaana maayo gudoomiyaha golaha oo keliya waxuu soo jeedinayaa inuu sharciga ku soo noqdo haddii kale golaha sida sharciga waafaqsan baan marayaa sida sharciga waafaqsan ayaan marayaa waligaa xukunka haysta oo doonaya inay dad gaara la beegsadaan say taageeradooda ama cabajugleyin wax soconaya maaha tani oo waxaad ka dagaalantay ama haygu kalifin sharcigaynu ku wada dhaqdaynaa sharcigaynu ku wada noolnahay nin ka sarreeyaa ma jirto anna kama sarreeyo adna kaa yeeli maayo ama hayga yeelin mar saddexaad waxaan soo jeedaya gudoomiyaha golaha wakiilada inuu sharciga ku soo dabaalo warqadaa soo celiyo oo shibidda bulshada isu nimaano haddii kale tallaabo sharciga waafaqsan baan qaadayaa ayaa ku sharaxo guddiga joogtada qodobka 14aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya akhri guddiga joogtada goorma loo gudbiyaa waxaa loo gudbiyaa haddii xildhibaanka falagarsiya lagu qabto ayaa golaha loo keenaya haddii golahu xiran yahay ayaa waxaa loo weydiinayaa in fasax baa looga qaadanaya xadhigga ogolaansho xadhig waa markuu xiran yahay sidii dakool guddiga joogtada waxaa la weydiistay ogolaansho haddii lagaa ii fur sharcigan ku dabaqo sharcigu ummadda ugu sugan tahay maaana u soo dagaalamaya adaa faqash ahaa ayaan weli wada sugan nahay waxaan ahayna waxu kalsoonahay aqbali maayo waxaan sharciyadda waafaqsanayn ma aqbalayo waxa weeye arrintayda adilku waa maamuska xayidin ma laha guddiga joogtadii under no circumstances sharciyadda la gara maray waa shir guddoon baan ahay warqadda u soo dhacay maxaa laga shiri weyne maxaa tay warqadda u shireen ila abiibullah hayb yahay oo warqadda laga shiro warqadda la taariikhaya maxay tahay gudoomiye xildhibaan iyo adigo gudoomiye sharciga kama sareysaan sharciga waa loo sameeyay gudoomiye muwaadin xildhibaan sharciga waa loo sameeyay haddii xildhibaan maxamed ee lagu helo oo soo dacweeyay maxaa ku jooray soo dacwada ka horista waa xildhibaan ay afkaaga gaaji haddii aad laga helo baad leedahay waxaan ka hadlaynahay waa eedana aad laga helo afkaaga gaaji saad sax weydii afkaaga gaaji waa badan tahay waxaan soo kicinayaa isagaa igaga horreeyey xaq baan leeyahay sharci baan leeyahay warqadda tiliday ee xildhibaan maxamed abiin maaha xildhibaan kasta oo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsan oo saddexda shirkadooda marka laga 79ka waanu sidan lahay hadday ka iman lahayd xeel dheere iyo hadday ka timaado xildhibaan khayrayada sida ilaa ay difaacayo dadka ka hadlaya golaha wakiilada isagoo hadduu dibtiisa baramaray 29 xildhibaan baramaray aniga iyadaa meesha fadhiya wadada hoos qabsan maayo sharci waxa aniga yiileeyay oo sharafta u yeeray waa 7 iyo 9